tan labaad mucaaradku waxay leeyihiin mucaaradku waa sheekeeyaan dadkay u sheekeeyaan xigmad kale ay hayaan ma laha gudoomiyaha baarlamaanka xilka lagu wareejinaana waxaan ku faraxsanahay gudoomiyaha baarlamaanka isagoo muddo xileedka 27ka December oo xilkii golaha aan hadda igu dhex wareysanaysaan uu dhamaaday kadib ayuu garow ku sheegay shirkii uu uga qayb galay 2016 sidii madaxweynaha xilligaas joogay uu ku joogay inuu ku joogayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagana uu ku yahay gudoomiyaha golaha shacabka anna aan maanta ku ahay xildhibaan golaha shacabka oo ka hadlaya ajandaha maanta hor yaalla oo ah wax ka bedelka qodobkiisa koowaad hindi sharciyeedka waxbarashada iyo boqolkii maalmood barnaamijka ra'iisul wasaaraha xukuumadda sidaas ku joognaa ayaguna waxaan leeyahay warkooda waa iska kalaam faadi sidaan aniga hadda u watooda igu dhex wareysanayso golaha shacabka ugu wadana